ay si kala yara yihiin oo looga hadlaayo taasay u kaliftay maanta aan idin yeero waxaan leeyahay marka ugu horeysa dadka reer Soomaaliland waxaan sheegayaa way ogyihiin waxaan xasuusinayaa Soomaaliland go'aan shacabay ku qaadatay madax banaanadeeda iyo dawladnimadeeda 1991 wax waqti ku xidhanna ma ahayn oo la leeyahay ilaa waqtigaas aynu sugeynaa oo goonistaagii ahaanaya waa go'aan shacab 30 sano la sheegayaa hadii uu 500 sano gaarayo madax banaanadeena aynu haysanaynaa wixii alla inoogu daran waynu sugeynaa cidii ay naga xirantay walbana waynu ka hawlgelinaa wala hadlaynaa marka horta in loo ogaado ayaa fiican madax banaanida Soomaaliland iyo dawladnimada goonistaageennu wax labaclabac galaya iyo wax gacan toogaalin galaya iyo wax qof qul go'aan ka qaadan karo la madaxweyne la siyaasi la suldaan midna maaha waxa leeyahay laga daayay hadidaada iyo karaamad darrada iyo sharaf darrada laga daayay qaranka waxa aanu soo noqonayaa kale hadalada maalmaha dhaweyta socsoconayay leeyahay wada hadalladii Soomaaliya iyo Soomaaliland hal la bilaabo wada hadalada Soomaaliya iyo Soomaaliland in la bilaabo inuu ku degdegno waxdan inuu jirtaa ma jirto waxaanu inagu bilaabaynaa inuu degdegna dawladda ugu riixaya waliba rag sulaadiin oo oranayaan hal la bilaabo waxa weeye anuu shakhsiyan Suldaan Cabdiraxmaan ahaan oo in badan oo Soomaaliland ila qabto shacabkana imika si xasuusinayo Soomaaliya anagu inaynu heshiino oo waxdan inuu jirtaba ma qabo sababtu tahay inagu dawlad madax banaan baynu doonayna inuu noqono iyaguna ma ogola mar haday sidaa tahay ku degdegeeda iyo uhinabiqoodkooda iyo ku cararkooda iyo gacan tagooreentooda iyo u kala dustiskooda wala siyaasi wala suldaan waxdan oo qaranka Soomaaliland ugu jirtaa ma jirto ugu horeyn marka dadka reer Soomaaliland shacabka reer Soomaaliland waxaan leeyahay waxa loo baahan yahay inay fiijignaataan oo qarannimadeena ilaashataan waxa kale aan ku baraarujinayaa midnimo loo baahan yahay midnimo iyo diyaar garow baa loo baahan yahay in arrinka laga diyaar garoobo awoodda laga diyaar garoobo awdi maayo oo lama quusto inaynu Soomaaliya wada hadallo sababtu tahay waa intaas Ilaahay naga siiyay waxaynu u baahanahay oo hadayna aqoonsadaan waa walaaloobi kareenaa marka in la wada hadlo soo fariistaa nin diidan oo awdaaya ma ihi laakiin waxaan doonayaa inaan dadka u sheego waxaanu doonaynaa inay tahay dawladnimadeena inay aqoonsadaan waxayna naga xilin inoo fuliyaan inaynu taawtaabashayno waran qaadano inta dadka Soomaaliland cad ka yeesho tanaan maanta doonaya in aan dadka xasuusiyo horta waa taa marka taas si ay noogu suura gasho waa in midnimo la helaa waa in loo diyaar garoobaa awood iyo arrinba sababtu tahay hadaynu wada hadallayno heshiin weyno Soomaaliya sida iga muuqataa wayna damaacisan tahay talaasi baa ka muuqda inay dadkeena soo faragelgeliso inay maartay si gaaban inoo gureyso in nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam inuu ku yiraahday nabi Allah qiyaamo goormu dhacaya qiyaamo dhacaya maxaad u diyaarsatay buuri Soomaaliya waan wada hadalnaa reer Soomaaliland doonahay maxay inoo diyaar bay Sweden leh wayna wax inoo diyaar noqdaan muuminna laba god laba jeer laga ma wada qaniino yana waa xadiis 60kii wixii nagu dhacay dadkan marnaba ku dhacaan ninna yuu ngurooni hadii wax kasta ku helayo tay kursi tahay hadii ay doon tahayba inuu si yaro khidaacan qof u gacan toogaalay qarannimada Soomaaliland inay mar daba ku noqoto halkii aynu kala soo noqonnay waa waxaan dhici karin bana lagu qabaa in arrimahayga dardaaranka afar qodob aan ku soo koobaya mid weeyaan horta madaxda dhaqanka Soomaaliland waxaan leeyahay mid xaq baynu u leenahay ilaashiga qarannimadeena iyo talada halka ka go'ayso Soomaaliya waxayna dhex maraya inaynu wax ku lahaano inuu goobjoog ka ahaano xaq baynu u leenahay cid naga duudsi kartaan ma jirto ma dhici karto idinoo diidi kartaan ma dhici karto sababtu tahay hogaamiyaashii dhaqanka ummadaynu nahay kuwa asalka baynu nahay in kastoo madaxii uu iska tagay ayaa mu joogaya kuwa horeba way tageen kuwa imika joogaana way tagi doonaan oo iska fadhiisan mid dambana uu iman doonaa isna uu tagi oo wixii waa waqti laakiin madaxda dhaqanku waa dhaxal marka iyaga ah taliyaasha asalka hogaamiyaasha asalka ummadda iyaga ah cid talada ummadda u diidi karta ama ka jiisan karta ama jirtay inagu horta inaan dicifnimo isku ridin xaq waxaynu u leenahay Soomaaliya waxa lagu wada hadlaayo waxaan wax ka ognahay oo aan idin la go'aaminahay noqoto taa waa sax laakiin inagu hormaarto noo la yiraahdo hala bilaabo sida hala yeelo ama inaynu baranaha lagu daro talada aynu baranaha lagu daro adoo waxaan leeyahay labada midna meesha ma taabana ma qabatee hala joojiyo taa waxaan leeyahay qolyaha ka hadlay arrimaha Soomaaliland waliba hala bilaabo iyo lama kala maarmo
midna madaxweynahan leeyahay iyo xukuumaddiisa ummaddu weydin aamintay hoggaan baana u tihiin wax u caddeeya ummadda yaan laydinka shakiin tuunkaa jira tuunka ummadda ka saara sababtaa soomaalida waxay tahdaa fulxantii ma mooga anigoo ku kalsoon madaxweynaha maanta ummadda hoggaaminaya uu sababtu tahay uu yahay nin waayo araga nin odaya nin wixii dalkan ka soo dhacay og nintii hore waxa ahayd iyo maanta waxaan joognaba garanaya anoo taa ku kalsoon haddana soomaalida waxay tahdaa fulxantii ma mooga waxaan leeyahay tuhum baa jira ka dhashay safarkii maalintii u dambeysay Itoobiya madaxweynuhu ku tagay farmaajo isku arkeen intii ka dambeysay waxa la wax la siiyay lama oga umadu dareen bay ka muujisay intii Soomaaliland ka naxaysaa waxaan leeyahay dub iyo imika madaxweynuhu go'aankiisa ku aadan Soomaaliya waxaanu suranayno wax dadka u cadar noqdo ila wuxuu u dhibtay maanu hayaa filina ma ayaan waxyaabo dadka qaar sheegaya maanta inuu maartay ummadiisa uu mas'uulka u yahay ilaahay madaxweynaha uga dhigay waxaan ognahay uu soo maray inuu wax yar oo caanteena dhaafsanayana anigu ma qabo waxaan u arkaa daacad raqiisa iyaan loo maartay dadka lagu khaldin laakiin isagana waxaan leeyahay waajibkiisa guto dadka wax u cadeeyo midna Soomaaliya waxaan leeyahay saan mooysan ma nihine inaan isku soo degdegin wax cad keena sheega waxba korba ha soo dhukusinay siyaasina ha soo dhukusina suldaanna ha soo dhukusina raga maanta Soomaaliya ka talinaya haday doonayaan wax Somaliland walaalnimadoodu ay ku jirta haday rabaan istiraatiijiyad cad keenaan midna waxaan leeyahay dadka aynu jaarka nahay iyo beesha caalamkaba waxaan leeyahay anagu Somaliland hadii aanu nahay ma diidanin odagtinimada haday tahay ra'iisul wasaaraha Itoobiya Firfircoon haday jimciyada qurmaha ka dhaxaysatay haday midiga Afrika tahayba in annaga iyo Soomaaliya la dhexdhexaadiyo ma diidanin laakiin in la jujuubo marnaba yeelmin waxba soo keen dhiman baan leeyahay siiba Abiy Ahmed waxaan leeyahay in la yaraa tahay hadalkaygaasuna waxaan jecelahay in ciidan u jirta ilaahidankii waxaan leeyahay jaarnimo iyo walaalnimo midnimo kuma diidan laakiin dhaqankayga ma taqaanid waxaan soo kala maray annaga iyo Soomaaliya ma taqaanid marka waxaan leeyahay si fudud ha loogu soo degdegine odagtinimadaada waan ogolay laakiin waxaanu dawlad leenahay intaan la ka tagmin iyo waxaanu xaq u leenahay toona waxaan ku gabagabeynayaa madaxda dhaqanka Somaliland baaq baan u dirayaa in laga shaqeeyo midnimada Somaliland shacabka Somaliland midnimadiisa shirkii maalintii dambeeyay burca ka dhacay labada beelood waa weyn isugu yimaadeen ee Somaliland majority ba noqon kara faa'iido ka dhalatay walaalnimo isaan baa ka dhashay waxaan leeyahay kii kala hal qabto beesha isaaq inta hadheeha loo yeero Somaliland inta hadheeha loo yeero kii wax tabanayaba lagala hadlo haleeyada maxaad ka tabanaysaa Somaliland jiritaankeeda iyo dawladnimadeeda inagoo markaa isku mid ah oo is aaminsan oo haday tala tahayna meel wada jeeda hadii warar lagu soo qaadana xabada wada ridayna aan Soomaaliya wada hadal markaa in imika la wada hadlana aanu macquul boo ma arko waqtigan imika taagan sababtoo ah Soomaaliya doorashay gelisa Somaliland doorashay gelisa Itoobiyadan inaga yar dhex shaqeynaysa lafteedu doorashay gelisa geesko dhan waxa ka jira issue doorasho oo dawlad walba ku soo fool leh anu waxa qabantii doorashooyinkaas u dhacayaan in la soo hadal qaadaba wada hadalada macquul ba ma habaan u arkaa sababtoo ah inaga doorashadu hayna dhaafto dawladda maanta joogta lafteedu doorasho may qaban hal tijaabiyo balna wax qaban karteen kale Soomaaliya doorashadu ha ka dhacdo balna ku imika jooga soo noqdaan inay qaar kale yimaadaan aan eegno inagoo degan oo aynu waqti haysanno wada hadalada inagoo dadkeena midaynay hal galo qof kasto reer Somaliland mid siyaasi iyo mid suldaan iyo mid madaxweynaha waxaan anigu uga digayaa qarannimada Somaliland inaanay si yar oo madow gurgurtan u gali karin wax laga tanaasuliyana inaanay ahayn Soomaaliya lafteedana taasaan u sheegaya madaxda joogta walaalayaal hadda noo haysaan itiraafna waa intaan rubnaay walaalnimo ku wada noolaano haddii kalena meel sukahan laga eeginay intii baynu kala raysanayo dhiigeen Ilaahay kala badbaadiyay